cabsida keliya ay qabeen waxay ahayd amay Soomaalidu ma aragtaa marka cabsida kaliya ma raadeerkeena mase sirdoonkeena xog lahaada raadaalka Uganda wararkii anigu aan taliyay bay kamid ahayd diyaaradii Yahuudi markay yimaadeen Nairobi ka dhaawacay wadeen way joogeen waxa airportkan joogay inkastoo sir ay ahayd la qarin laakiin waan joogay tabinayna marka buug la qoray oo Yahuudi ay qortay waxaan doonaa ku sawiro Soomaalidu xaaladdiisa ahayd Yahuudi waxay tiri waxay ka soo duuleen moogtahay dhulka Yahuudi ka soo duuleen Tel Aviv ka soo duuleen Uganda u socdaan Soomaaliya hawadada iska ilaalinayaan cabsida keliya ay qabeen waxay ahayd amay Soomaalidu ma aragtaa marka cabsida kaliya ma raadeerkeena mase sirdoonkeena xog lahaada raadaalka inay daruus farmeesh fadhiya cabsida keliya ay Yahuudi soo qortay waxay tiri cabsida markaan intee ku duuleynay cabsida keliya in qabnay waxa weeyaan amay Soomaalidu intayna aragto ay u sheegtaa Idi Amin ambassador kalkaashin Xaashi Cabdalla loo jiray uu ku dhawaa dawladda halka hadda Falastiiniintii meesha nimankii ay ku qafaasheen halkaas airportka diyaaradda Yahuudi lagu qafaashay ay ku Soomaalida dhaxadinaysa ninka Xaashi Cabdalle ayaa meesha marka dawladda ay ku aamintay Uganda magaratay marka cilaaqaadku fiicnaa marka cabsida weyn waxay ahayd Soomaalidu amay warka ayadu ay ogaataa marka waxaa la oran jiray wixii aan ka ahayn Masar iyo South Africa waa ciidanka ugu xoog badan Afrika filim daawada laga sameeyay diyaaradda oo waxaan maleynaya waliba ninkii kabtankii hogaaminayay wuxuu ahaa la dhashay ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu waa lagu dilay asaga Entebbe Kenya waaga xiriir la lahayd Israel marka ilama hadda halkan dhaawacoodii la keenay halkan la mariyay waxaan la qabaaba matqana dooyo inay ka baxeen Kenya oo ay aadeen Uganda oo Yahuudi halkan ay duulaanka halkan laga qaaday oo inta wali la tagin Entebbe oo diyaaradaha sayna imaan dhulka la sii diyaariyay